sooma garan waxa la yiri ka naga taga waliba runtii marka loo eego waa dadkeen oran jiray waa xoogaa waa ka aqoon badanahay oo waxyaabo badan si hoos u eegi jiray way maanta adaa hoos lagu eegaya xaqiiqada marka loo hadlo waxaan marka halka ka muuqata waxa weeye war wax badan aynu dhaafno haday ninkii Xuseen wuxuu jeediyay rasuulishka yani in dhibaatada dhacday la ilaawo hadaynu dhibaatada xusnaano waxba runtii wax inoo hirgaliya ma jiraan waynu ognahay dhibta dhacday laakiin Soomaaliya dhibta dhacday waa wada saabaysay nabay u hormartay iyo nabay u dambeysaba kulli maanta wala wada tahay qof ay taawan male soo ma garan bad dadka waa wada laqday dibadda waa loo soo wada baxay waa la dhintay mashaakil badan baa dhacay hadda maanta Soomaaliya meesha taagantay waa kuma faraxsanin hadda runtii dhibta ka dhacaysa meelaha Soomaaliya hadda ruubka kuma faraxsan wala aan laga way waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu ka joojiyo dhibta bayanu rajaynaynaa nabadgelyaanu dadka u rajaynaynaa wanaag baa midnimo aan u rajaynaynaa idinka qolooyinkan maartay hadda la baxay magacaan urur aniga mesela tayada hadaan ka hadlo waa soo yareynaya waxa weeye wasiirka amniga taliyay biliska ugu horeeyay baan horta ahaa oo Puntland 3 sano ayaan ahaa runtii dhibaato weyn baan kala kulanay laakiin waa ku guuleysanay aniga rag kalaba inaanu Puntland dhidabada u aasno Puntland markaas nabadgelyo kama jirin cashuur iyo hab dawlad kaabiyaasha dawladdu kama dhisnayn rag badan oo hadda dhintay baa jiro aniga la shaqeeyay Allahu naxariisto saraakiil waaweyn ahaa sida Faarax Rooti iyo Mijir Ahmed Mijir ninka la yiraahdo Forte nin la yiraahdo kulli saraakiiltii hore waaweynaa bay ahaayeen biliiska ahaa qayb weyn bay ka qaateen dhismada Puntland bay ka qaateen biliiskana asaas u ahaa waayo cashuur lama qaadi jirin nidaam ma dhisnay waxa 500 nin baan ku bilownay oo biliis ayaan ku bilownay runtiina maanta nabadgelyada iyo Puntland kaabiyaasha Puntland 500 nin baa dhisay oo u ahaa horseed u ahaa oo biliiska qaarkoodna hadda intooda badan waa dhisteen Puntland sida ogtiin hadda 4 madaxweyne bay soo martay مثلا مدحوينه هوري عبد الله يوسف ها كي لبادنا وحوها محمد عبد الحاشي كسدحاد عده جنرال عده كان فرادنا وحوي عبد الرحمن فرولي halka waxa ka muuqata system ah dimuqraadi waa ka muuqata wada jeedaan wasaaradana haday waa la sheegay waa la bedelaya aniga anoo soo maqlo shaqo ku baqan baa la bedelay ooga waa dhibsaday waxa jecel anigoo joogay in la bedelo laakiin wax mashaakil oo ay leedahay ma jiraan waxaan rajaynayaa caqdad ugu abuuri mayso mid ayada anu hadda waa shaqeeyay waxaan u shaqeynayay Puntland oo aan hadda wasaaradda meelo badan dawladaha Canada muxuu ahaa wasaaradda khaarijka waa runtii waxaan leeyahay shirar baan la yeeshay xafiiskan hadda State Department shirar baan la yeeshay waxa oo dhan waxaan ka shaqeynayay danaha Puntland iyo danaha Soomaaliyaba runtii wax weyn baan runtii ka qabtay hadda radaan noqdana أنا وأساسياش بان كم ده هاي محوها وسوها الجمي بونتلان مرة يجمع السورة دوحي عند سرت عنو لسيني مدارت عنو لسيني إن أنا مكتوب تحكي من إسكده حتى مجع علينا إن دبعته يكون عضو وأنت نقول هنا وكشغينا يا وأسألك يا بقى أنا مرتي حكم كذا عن كدونتو سين بتقولي أنا كدونتو وألاقي يا بقى أنا أو سرت عنو قالوا وادي عمل كتب هالنقطة waxaan runtii idin rajaynayaa dhamaantiin rag ka soo qayb galay meesha oo runtii hadda ururkan muxuu ahaa ururka banaadir maxamed abukar iyo rag kale oo runtii ka soo qayb galay ururada kale ka socda martida kale too halka ka soo qaybsha kulli dhamaantiin oo shir ka soo qayb galay oo aan leeyahay Puntland kama tirsana laakiin Soomaalinimo ay uga soo qayb galeen shirkan iyo runtii maamuusid aniga lagu soo dhaweynayo runtii ma istaahilo waxaan oo dhan lagu sameeyo laakiin aad iyo aad baan mahadin ka celinayaa waxaan qolada muxuu ahaa BDF runtii aan ku adkeynayaa halka inay ka sii wadaan hawsha inay saxaan wixii qaldaad oo hadda ay ku arkaan Puntland inay saxaan inay indhow noqdaan in waayo saxidda waa loo baahan yahay wixii macaarad loo baahnaa destructive wax burburiya laakiin macaarad constructive oo banaa wax dhisa waa loo baahan yahay wax xalo khaldaadka in la sheegayo loo baahan yahay dadka gudaha ku jira wax badan oo aan ogeyn baa dhici ka dhah oo idinku aad ogtihiin mutacalimiin baa tihiin dawladda waaweyn oo magaranaysa horumaray baa ka shaqeysaan waxaan rajaynaynaa ha ka hagranina wixii markaa tusaale ah oo waxtar u ah dhismaha Puntland ama dhismaha Soomaaliya sidii runtii
khayr baan idin rajaynayaa idinkana waxaan idin rajaynayaa midnimo inaad ku shaqaysaan iyo inaad Puntland kaliya isku koobinina inaad qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyana inaad qayb weyn ka qaataan dhammaan labaad waa in waxaan idinku hambalyeeynaya muxuu ahaa guul iyo wanaag iyo sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya ay lahayd oo si degdeg ah ku soo noqoto. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.